saaxiibaday horta laba mushkila haysatay xildhibaanada hadda maanta dooda waday mid waxay ahayd runtii inaysan xoogaal u ahayn xeeroosaadka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ay ku shaqeeyaan ama midka doorashada ha noqoto ama midka ajendaha marka la keeno hadday dood ka qabaan qaabkay u wajahayaan oo xeeroosaadka iyo dastuurka ay u waafajin karaan runtii xoogaal umaysan ahayn meesha runtii ay hadday ra'yi qabaan ay keeni lahayd waxay markii ajendaha lasoo bandhigay oo golaha la keenay ajendaha dhowr qodob ayuu ka koobnaa laakiin laba qodoba ugu muhiimsan oo doorashada qusayday midna waxay ahayd midda lacagta curaarta wax looga bedelayay oo laga qaadaya dadka murashaxiinta guddoonka labada aqal sharaxan iyo madaxweynaha iyo midda qusaysa warbixinta guddiga laga dhageysanayo lasoo iska jiwalgaray haddii marka dood ay qabaan marka ajendaha la ansixinayo ayay waxay ahayd inay dooda ka keenaan oo meeshaas ra'yiga ay qabaan ay gashadaan sida qodobka 25aad xeeroosaadka golaha shacabka uu qabo arrinta ajendaha qusaysa inay xilligaas dood ka keenaan oo yiraahdaan annaga ra'yigan ka qabnaa waxaanan u baahanaa meeshaan inaan ra'yiga meesha ku qoran gedisan keeno ma aysan dhicin oo runtii hadda aqoon darridaa keenaydee waa ka hoos baxday ajendihii waa la ansixiyey nidaamkii uu tilmaamaya xeeroosaadka ayaana loo maray oo ahayd in qodobkiina la bedelo loo codeeyo iyo qodobka kalaad warbixinta in la dhegeysta ahayd meel marka ra'yi ay kasoo geli kareen ama xildhibaanada ay ku qasbi kareen ma jirin sababtoo ah stagekii hadday ra'yi qabaan ay dood ka keeni lahaayeen waa lasoo gudbay xeeroosaadka golaha shacabka iyo midka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayaana saas tilmaamay qodobka labaadna waxay ahayd markii doodii ay markii ajendihii uu dhammaaday oo la xiray golihii ayaa waxaa la yidhi maadaama hoobiye lagu soo weeraray xarunta baarlamaanka xildhibaanadu iyaysan bannaanka u bixin ee ha sugeen inta laga clear garaynaya bannaanka oo la ogaanayo waxaa dhiba inaysi jirin intii marka la sugayey oo guddoonkuna meesha ay fadhiyaan kumeel gaarka xildhibaanaduna howlka ay ku jireen ayaa xildhibaano soo kaceen xildhibaanada ayaa guddoomiyaha baarlamaanka u yimid gaar ahaan guddoomiyaha golaha shacabka kumeel gaarka mikrofoonkay ka damiyeen ayagoo gacanta ku dhegan oo jiidayaan aniga marka meesha inta kasoo kacaan u imid markaan u imidna waxaan idhi war maxaa dhib oo idin haysta maya waxay yidhahdeen waxaan rabnaa in aqalka sarena la fasaxo golaha shacabkana inta isku hara aan doono marka waxaan idhi war dooda sida meesha ma taalle procedureka ama xeroosaadka golaha shacabka waxaas ma qabo maalin kale la sugta dad ajenda kala qabtiin haddii aad ra'yi qabtaan waxay ahayd markii golaha ajendaha la ansixinaya inaad ra'yigiina keentiin haddii aad u baahan tihiin shuruucda in wax laydinkaga tilmaamana sidaan ma ahan sida aad wax idinka maqan ku raadi lahaydeen xeeroosaadka iyo dastuurka aan fiirino meel doodu ay idinkaga furan tahay ama dood looga furi karaa labada aqal oo wada fadhiya hadday jiraan oo arrintan doorashada qusaysa aan ka wada hadalno oo noo sheego 1 2 3 4 5 kadibna uun farataagtaag iyo dagaal uun meesha ka bilaabeen runtii intii aan wax u sheegi karna ama waari karna oo isku daynay meesha marka xoogaa buuq yaraa ka dhacay hadda dagaal kale kama soo jirin kadibna markii guddoonka labada aqal ay shirkii xireen oo ka tageen kadibna annaga meesha waa kasoo tagnay marka inahaas uun intii hadallada aan isku jiidaynay ayaa kaamirooyinku qabteen ma ahan hadda wax kaloo culaysa ma aysan jirin